ninka dukaankiisa Ethiopia ka furay hadii cashuur ku soo waajahday ama cashuurta Ethiopia ama dukaanka Ethiopia ka furan Somaliland cashuur ay ka rabtana anigu waxaan ay dukaankiisa ka furan matalan Kenya Somaliland cashuur hadii ugu waajahada iga qaado sababta cashuur ma diidi karo laakiinse waxa qurux badan dhalinyaradu fikrada iyo aragtiyada ay la timaado ama ay la yimaadaan hal la soo dhaweeyo hana lagu dhiiri geliyo laakiinse hadii la yiraahdo bixiya cashuur bixiya kan kale ayagoo la ogeyn rafaadka dhibta ay ka maraan waa ayaan darre inteeda leeg ban oran qodobka saddexaad waa qodobka afraad waxa weeye qodobka TV-yada iyo telefishinada annaga haddaanu nahay qodobka afraad waliba aad buu sal balaaran yahay anigu aan ka hadlayo shakhsiyan YouTuber hay ama aan YouTuber reer Somaliland aan kamid ahay waxa weeye kow telefishinada annaga hadaan YouTuber in lagu madari karo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعنا وناكسر إذا لهانتي بقى خيارت غالي ما كنت كده على ساد كتشوكتا ولكن هذا برعو بريد الله برينايه ما بريده إذا كديب واحد شراء أرهم بدن أو برها بالشدة حرارية معلومه وجود بيه سيدا ورقة هالكن أذكار كيسان أو كصوب حذي وسارده ورفافين تدقن كيه وعيجلين تسومال لان أي كصوب حذي قلت قلوا كان نجا نوع أروراء مبكم مهمة مدول با وحبا اللوجو صغير ما شاس أنا وحبي يجي ميجلين تكلا لكن واحد كنت شفت قيت يوتيوبر هذا عاديات كل يوتيوبر هذا رجع سنة إن يرماها كل وحاجة وبدينهن إن وحكاش إن وحبا كهلين إن وحكاش لكن وحي كهلا مال أيوم مران يمال أي كسر صارتان لا وأنا الحلين تودي لجوتشرو سكستة يا هاتبا واحد شراء عشور ليلي وعلى بحنا يا عشور تاس كلي مواد كستا قصب أي كتهاي إن عشورتها لبحيو عشورنا وحلا ديدا معها ضل كلاستبا دد كيسة هدي دولة أي تادا عشور بحية أو عشور ديدان دد كموادين تعمل دد كقصة الديدان عد كلا أب بحنا سامع عد كلا وحلا جسوجيا هرت ما جت تتحقق بالجويها والله هو فهمتي سوريا أو باش فشل عبادة عشورتين لبحية سكستاي هاتبا هدبا يوتيوبر هذا هدانو نهاي مع أرقام مسمحة لبعتها أوجرا طلبات waxaan soran karaa maqalinka ka xaday oo warqad way kaga dhacday mise wax loogu tala galay oo si bareer ah oo caadi ah loogu soo qoray hadii si bareer ah oo caadi ah loogu soo qorayna waxa weeye horta waxa qurux badan in la isweydiiyo dhalinyarada YouTuberada ah ama shirkadda YouTube maxay ogashahay maxaase lagu qaataa lacag ama wadadeeba loo maraa lacagtan taasoo isweydiin mudan horta annaga hadii aanu YouTuber nahay waxaanu ku shaqeynaa wax la yiraahdo ama lacagta aanu ku qaadanaa wax la yiraahdo Google AdSense si kasto ay ahaataba Google AdSense kaasina waxa weeye waa dal kasta oo la ogol yahay ama shirkadu ay ogashahay ayaa maxay ahayd lagaga qaataa wadamadaasna ama ha noqdaan Kenya ama ha noqdaan Europe ama ha noqdaan ba America ha noqoto meesha doonta ba ahaato si kasto ay ahaataba AdSense dawladda ama meesha aad kaga xiratay wadanka aad kaga xiratay ayaa cashuurteeda aad ku bixinaysaa oo cashuurta kugu leh sababta wadan kasta oo qof kasta uu ku xidhay inuu wadanka cashuurtiisa bixiyo waa uu ku qasbay sababta wadamada waxaan ka isticmaalnaa addresskoodan isticmaalnaa sidoo kale waxaan isticmaalnaa waliba anagu ma isticmaalno waxaan raadinaa qof dalka jooga oo aan isfahmayno oo aan isafkaranayno oo addresska dalkiisaas ama dalka uu joogo noo isticmaala isagoo anagana matalaya waxaanu isticmaalnaa baasaboorkooda waxaanu isticmaalnaa akoonadooda hada sida awadeedna maadaama dalka aan addresskooda iyo akoonadooda iyo baasaboorradooda aanu isticmaalayno way ku qasbiin ama xitaa sankaaba noogu daloola in cashuurtooda naga goostaan iyagaaba goosto iyagoo goostay baan ku warhelnaaba waayahay taasi waa halkaas oo de horta Somaliland marka aanu joogno hadii Somaliland leedahay Google AdSense anigana waa iga furan yahay annaga taasaba nooga fududo dal kale ba kullee cashuurta naga qaadanayay dawladdan oo naga qaadata ayaaba nooga fiican oo noogana dhib yar waayahay oo waxaygiiba nu madax banaanaanayna qodobka labaad waxa weeye shirkadda iyo internetyada macnaha waa shirkadaha waxa weeye internetyada keena sida sida Somtel Telesom waa shirkada saasa si kasto ay haataba anigu shirkadda aan isticmaalo waa shirkadda shirkadda waxa ay qaadaa lacag internetkeeda ah oo $50 ayaa naga qaadaa isticmaalka internetka aan isticmaalnaa cashuur laga doonayna shirkadda mar aan garaacay xitaa lacagtu ay korodhay waxay igu yiraahdeen waxa laga rabaa cashuurtii dalka oo waxay naga qaadaan lacag ku dhow ilaa 20,000 oo laana macnaha ilaa $720 bay naga qaadaan $720 $5 marka laga jiro ilaa 20,000 oo laan ku dhow oo shilinka Soomaaliland ayaa laga qaadaa cashuurtii dalka
halka horta cashuurta waanu ka bixinay oo shirkadda soo hadii cashuurtii dawladdu ay ka rabtay anaga naga qaadaysan waa halkeeda oo taa dawladdiga ka wada xisaabtami doona hadii ay dawladdu noo soo dhex martay ayaga oo ay leedahay dadka internetkina isticmaala cashuurtana raaciya oo u sheega cashuurtii dawladda ay tahay waajibkooda way guteen baan kara waana noo sheegeen waanaan bixinaa cashuurta kale cid naga rabto ama dan youtuberanay ay dawladdu naga rabtana waa ay noo sheegi doontaa ay soo korodhay inta si dheer qodobka saddexaad aanu imanaya wax weeye cashuurta uu muwaadinku bixinayo qodobkaas waa qodob muhiim ah muwaadin cashuurta bixi qasab baa lagu yahay in cashuurta la bixiyo taa wax lagu hagaaga ama wax de lagaga dooda ma jirto cashuurta bixi waa bixi shifo sharci baa wali lagu bixinaya iska bixi maaha marka shifada sharci qaar kamid ah haday kugu soo aroorto ama qaar kamid ah asifadeeda leedahay ama dukaan ku dhax yeelo ama meherad ku dhax samee ama noqobade qof meel yaro de furtay bad doona geerishba furtay soo doontaba haw waa bixinaysa taas waa qasab taas waa halkeeda waa yahay qodobka saddexaad waa taa qodobka afraad waxa weeye qodobka TV-yada iyo telefishinada anaga haddaanu nahay qodobka afraad waliba aad buu sal balaaran yahay anigu aan ka hadlayo shakhsiyan youtuber hay ama youtuber reer Soomaaliland aan kamid ahay waxa weeye kow telefishinada anaga dan youtuberina lagu ma dari karo waa kow sidoo kale lagu ma dari karo sidoo kale qaybaha warbaahinta lagu ma dari karo sababta telefishinadu xayisiisi ay qaataan waxay leeyihiin sidoo kale wariyaal bay leeyihiin wariyaashoodu way sharciyeysan yihiin sidoo kale telefishinada iyo wariyaasha u shaqeeya hadii la xidho wariyahaas laba shayba uu helaa waxa uu helaa hiilka koowaad telefishinkiisa iyo gudoomiyihiisa oo u dooda qodobka saddexaad oo helaana waxa weeye qodobka maxay ahaday ururka layaado Soldier oo iyaguna u dooda anaga haddaan youtuberis nahay gudi noo dooda ma haysano waa kow Khalid Shayga wiilka layaado mar la xiray de Soldier uma doodin gudi telefishin ama warbaahinada u doodayna ma jiro hada ma jirto sidoo kale iyagu waxay helaan waxyaabo injooyo qaataan ama hay'adaha ka qaataan ama dawladda ha u qabato seminaaray galaan seminaarada say ka faa'iidaan income ay ka faa'iidaan aqoon xaq baanay ugu leeyihiin dawladda maadaama ay injooyo ka faa'iidayaan cashuurna ay ka faa'iidayaan income-na uu ka soo galayo in la celiyo cashuurta waxa weeye waxel teedna wax bixi weeye ayagu marka xaq bay leeyihiin anagu injooyada kama qayb qaadano sidoo kale marka qaar waxay galaan madaxtooyada iyagoo shifo sharci ku galay sida ID card anaga hadii aan maanta waxaan duubanayna ID card ma sidano suxufi kasta telefishinkiisa uu diiwaan gashay isaga wariyihiisna uu diiwaan gashay oo wuxuu sitaa ID card waxa uu leeyahay waxaan telefishinkaas ka tirsanay magacaygu waa kan halkaas qortu ugu sitaa maxaan waan sidanaa maxaan saanahay injooyada ay dawladdu ay bixiso ma ka qayb qaadanaa waa mayade inta midnaba kama qayb qaadano hadii inta aanu ka mid noqonayna laftigeedana iyadoo inta kan in la saxal loo baahan yahay haddaanu ka qayb qaadanayno waanu ku faraxsanay aad iyo aad baan habi ay noogu tahay inaanu ka qayb qaadano oo madaxtooyada wararka laga soo tabinayo sifada sharciga lagu qaataan ka qayb qaadano warbaahinada meelaha laga ogoliyay dhikaadada ay ku galaan anagu ma haysanay aanu ka qayb qaadanno ka qayb qalino injooyada loogu yeero iyo ururka Soldier oo u dooda anaga dooda iyo u doodida malihin ma haysano inta anagu aan u baahanahay sidoo kale telefishin kasta gudoomiye leeyahay ururka Soldier waxa weeye afhayeenunta cid kasta warbaahinta sidoo kale anagu ma fanaanin baan nahay haddaan fanaanin nahayna hana loo sheego oo qaybta fanaaninta hana lagu daro haddaan warbaahinayna qaybta telefishinada hana lagu daro de hadii aanu nahay ma garan karada anagu meel aan haysano ma garan karno adduunyadu waxyaabihii ay adduunku u ka yaaban yahay wax ka qaybaha miidiyaha oo adduunkii uu xal u leeyahay hadii ay leedahay Soomaaliland xal baan u helay marxaba wax adduunku ku wareeray hadda xal u hesheen waan soo dhaweynayna waana idin la qaadanaa anaga ugu horeynayna ma sha Allah sidoo kale waxa jira dad badan oo de YouTube lacag laga ma sameeyay meelo badan oo laga sameeyay jirta sida page-ka ama Facebook-yada ayaga laftigoodana waa loo baahayay adigana soo dhaweysaan odaygana aad ku soo dartaan inkastoo ka iloodeen baan jecelahay ama se aan idin aaminsanaynba in laga sameeyo hadii laga sameeyay iyaga laftigoodu nidaamkeebay wax ku helaan baa ka horeysa waa hagaag taa halka markaan kaga imaado anigu laba qof midun baan ku biiraya waxa weeye waxa jira dad dalka jooga oo muwaadiniina oo dadkoodu biiriyaan ama Europe ha laga biiliyo ama Ethiopia-dan ba ha laga biiliyo ama Kenya ba biil ha looga soo diray dadkoodu way biiliyaan biilna waan garan karnaa waa mid cayiman iyo mid dadku ay isku gartaan walaalaha ay desbiiliya oo bil 200 300 walaalka biilka ku soo diray ma cayina hadina la leeyahay anaga Kenya tusaanaanu ku xidhno Kenya la iga biiliyaa biilka la soo dirayana bil walba waji buu leeyahay oo mid cayiman ma aha haday leeyahay dadka la biiliyaad ka mid tahay dadkii la biilinaya lacag iyo cashuur laga rabaa la leeyahay waa soo dhaweynaya waji cusub hadii dukaanka Ethiopia ka furan ninka mulkiilaha halkan jooga
ee bartan iska jiifa dukaankiisa Ethiopia ka furada Ethiopia cashuurta ka qaadata ninka dukaankiisa Ethiopia ka furaya hadii cashuur ku soo waajahday ama cashuurta Ethiopia ama dukaanka Ethiopia ka furan Somaliland cashuur ay ka rabtana anigu waxaan hay dukaankiisa ka furan matalan Kenya Somaliland cashuur hadii ugu waajahda ay ka qaadato itaaba waan leeyahay sababta cashuur ma diidi karo laakiinse waxa qurux badan dhalinyaradu fikrada iyo aragtiyada ay la timaado ama ay la yimaadaan hal la soo dhaweeyo hana lagu dhiirigeliyo laakiinse hadii la yiraahdo bixiya cashuur bixiya kan kale ayagoo la ogeyn rafaadkii dhibta ay ka maraan waa ayaan darre inteeda leeg ban oran karaa way jiraan dad badan oo ka hadlay laakiinse hababkan aan uga soo hadlay nidaamkan aan uga soo hadlay xitaa waa laga yaabaa inay ka butaasiiyeen oo ay dul maran iyagoo qaar kamid ah cadaysan yihiin ama ay la yaabiyiinba waxaan jira laakiinse hab wanaagsan oo habkii aniga shirkadda YouTube iyo shifadan wax ku qaadanay intii aan aqoonta u lahaa waliba ayaan kaga hadlay oo qodobaysan oo afar qodob bartan ay ku jiraan aad iyo aad baan u dumaasay asxaabta qaaliga inta hadii la waayo bil baa dadka loo qabtay bisha hadii dadku ay ku yimaan waayaan miyaa la xiri doonaa marka caawil premier la xiraya si dad badan baa la xiri doonaa hadii la xirana maxaa lagu xiray baa la oran doonaa taas waa halkii taala mise waa loo yeeri doonaa hadina loo yeelana qodobadaas oo midhan baa jiray maxaa xalay noo haya waa taas waxa jira YouTube markaad geysa jooga qaar kamidi lacagtii ay ku jirto hab ay kula baxaan garan la oo halka laga diiday oo maba laha la yiri nidaamad kaga qaatan halkan Somaliland marka maba laha nidaamkiiba waa koow waxa jira dad halka joogo lacagtooda loo soo diro oo dad kale ay u soo diraan lacagtooda cashuur baa laga qaadaa baan la soo dhigaa ama ha noqoto dahabshiil ama ha noqoto meel kale ama ha noqoto maxaa la telesom shirkaddan ay samaystay touch baa la radaa ha noqoto waxyaabaha soo dhan waxaas ayagana waxay ka sii qaadaan dad garan kartaan lacag cashuureed baa laga goostaa hada marka dawladdu leedahay baan samaysanay baanka aan samaysanay waxaan doonaynaa meel walba uu ka furan yahay ku soo shubataan macmiil noo noqday dawladana leedahay mustacidiin ana macmiil idin noqonayo kowka oo dawladdu leedahay macmiil noo noqday sida telesom iyo dahabshiil baan anaguna xarumo ka furanay meel walba macmiil baa idin qofka xitaa lacagta noo soo dirixan leenahay hadda halka ka soo diri wada maba qaadanayaba هذا أدياد بوماستي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإنه يكرد بيسبق الضبع عسلي ولكن أنا برعب بوايد له هالصعود تهاوشو كفتنا ويجوب بدنايا عولوا عشوتي الدولة ما بحسي سيدا كلا عشوتي يجوب بدنا على قاضية وكفتنا كأصحاب تسكاي مركا باي باي